deegaanada galmudug waayadii dambe furimo cadow ayaa ku furnaa cadow ayay la dagaalamayeen ciidamada qaranka iyo kuwa galmudug in qoryo inta la qaato dhabarka xabad laga saaro waa mas-uuliyad darro waa diin la'aan waana qaran dumisnimo waxaan ugu baaqaynaa kooxaha diinta ku qaraabanaya dadka reer galmudug sida micno darrada dhiigooda ku daadinaya amnigooda ku carqaladaynaya nidaamka dowladeed ee deegaanadan ka hana qaadana lagu cuuriyaaminayo inay ka waantoobaan waxaan idin leenaha walaalayaalow haddii xil wax tarayo ama xoolo wax tarayaan maamuladii dalkan iskaga dambeeyey ee dhowrka ahaa qolo waliba heshiis ayay idinkula gelayeen xoolo ayaad ka qaadayseen xilal ayaad ka qaadayseen mas-uuliyadda ayaa mararka qaar la idin dhiibayey oo la idin lahaa adinku wax maamula ilaahay iimaanka idinku geliyey intii hore dowladdii madaxweyne sheekh shariif ayaa heshiis la gashay markay sii dhacaysa waad ka baxdeen tii madaxweyne xasan sheekh ayaa idla gashay markay sii dhacaysa waad ka baxdeen dagaalaad soo qaadeen oo dadka iyo deegaankaba dib aa ugu celiseen madaxweyne xaaf ayaa yimid 120 mudane iyo madax xukuumadeed iyo wax allaali wixii mas-uuliyad ay lahayd galmudug ayaa gacanta inta la idin geliyaa la idin yidhi maamula galmudug asagana wadacad ayaad ku dirteen oo dadka Soomaaliyeed ay dhammaantoodooda arkayaan madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayre ayaa idin yimid heshiis ay idin la galeen xilal ayaad ku bedelateen baarlamaanka ayaa qayb ka qaadateen markii doorashada la gelin la yirina waad ogtihiin wixii aad ka dhigteen inji iyo dagaalkii aad ku qaadeen galmudug walaalayaalow waxaan idin leenahay caqli waa idin soo laabto haddii xil wax taray ama xoolo wax tarayo ummadda Soomaaliyeed waa idin soo tanaasushay jaanis ayaa la idin siiyey waxaan idin soo jeedinaynaa dhiigga aad faraha kula jirtiin inaad ka waantowdiin dadkiina aad dhinac ka raacdiin dadka reer galmudug gaar ahaan ummadda ku dhaqan degmooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel iyo Matabaan waxaan ugu baaqaynaa inay dowladnimadooda ilaashadaan in maamulka galmudug ay garab istaagaan kalana shaqeeyaan nabadgelyada iyo sidii adeegyada maamul ee deegaanadooda loogu baahayay oo meesha maanta uu joogo hore uga sii socon lahaa waxaa nimankan maanta shaarka diimeed inta soo gashaday idinku dhex dhuumaalaysanaya maanta godadka ka qodanaya degmada Gurceel ujeedada ay leeyihiin waxa waaye Matabaan iyo Mareergo inta u dhaxayd isbaaradii u taalay iyo horumar la'aantii ka jirtay inay dalka iyo deegaankaba dib ugu celiyaan aan iskaashano maamulkeena garab istaagno waana guuleysanaynaa insha Allah midda koowaad waxa weeyaan dadka abaabulkaas ku jira anigu de runtii aan dhihi kara waa nabadiid macna kale iyo magac kale oo yeelan karaan ma jirto dadka nafta waxa cadow u ah qofka goynay waxa cadow u ah qofka nolosha u diidan waxa cadow u ah qofka inay noolaato hor taagan isbaarada u taala cadow ah in ziyaaradii culimada iyo khayrkii iyo wanaagii lagu bedelo dhiig in la daadiyo in marmarsiyo laga dhigto Sheekh Yuusuf Direed ziyaaradiisii gogoshiisii iyo xilligiisii dadka Soomaaliyeed ay isugu wada imaanayeen oo ay maaratay munaasabadaas qiimaha leh inay u bedelaan mid dhiig lagu daadiyo inay u bedelaan ayagoo culimadii ah dadkii fatwo khaldan ay u fatwoodaan inay dadkii dhiigoodi isku baabi'iyaan marnaba wax la qaadan kara ma aha tilaabada ay ku dhaqaaqeen nimanka odayaasha ah ee siyaasiyiinta ah anigu ma dhahayo culimo waaye laana culimada muwaasafaad ay leedahay tilmaamay leeyihiin culimadu khayrkay ka shaqeeyaan culimadu dadkay diinka baraan culimadu dhiigga muslimka in la daadiyo hor istaagaan culimadu wanaagga ummadda tusiyaan laakiin culimo ma aha qofka qoriga sita ee doonaya inuu dilo dadka midka la socdo dilaya midka ka soo horjeeda dilaya una mamman inuu dadka dhiigooda cabo ka anigu culimo ma aqaano shabaab kulama dagaashanin inay yihiin dad gaar ah oo cirka ka soo degay waa dad Soomaaliyeed waa wiilasheenii waa dad sheeganaya inay ahlu diin yihiin oo culimo yihiin haddana dadkii bay dilayaan dadkii bay qarxinayaan dadkii bay baabi'inayaan laba tafsiir kala ma qaadan karo qofka wax dilaya ee ummadda barakacinaya ee ummadda qixinaya kalarka uu rabo iyo lawnka uu rabo ha ahaado kalama taqaano itijaahiisa fikriga meesha uu ka soo jeedo haddii afcaashoodu ay mid noqdaan isku mid ayaa loola dagaalamaya isku midna waa looga hor imaanaya cadow isku midana way noqonayaan galmudug maanta uma baahna cid burburisa galmudug uma baahna cid maslaxadeeda iyo danaheeda hor istaagta deegaanada hadda uu xildhibaanku ka hadlayay Dhuusamareeb iyo maaragtay Gurceel iyo Matabaan oo Hirshabeelle ka tirsan dadka joogana
si guud ayay ugu jeel qabaan nimankan odayaasha ahi inay ku celiyaan godkii shalay ay ku hayeen mugdigii shalay ay ku dhaxayeen ayay rabaan inay mar kale dib ugu celiyaan ma filaayo inuu ficilkaasi socon doono borobokis iyo laba baabuur oo yaryar ee hadba 10 wiil inta la saaro hadba meel la tago ma deegaanna laguma qabsanayo dadna dowladnimadana laguma dhaawici karo laakiin dadka dhiigooda ay daadinayaan ayay ziyaadinayaan oo dhibaatada ay geysanayaan oo cuslaynayaan midda dadka reer galmudug waxaan rabaa inaan idhaahdo ama gaar ahaan dadka deegaanadan degan inay ilaashadaan dowladnimadooda inay macnaha dowladnimadu waxay ku jirtaa midnimadooda ku jirtaa macnaha dowladnimadu waxay ku jirtaa inay dowladooda garab istaagaan inay la shaqeeyaan inay nidaamkaas maamul ee dowladeed ay dhistaan ayay macnahooda ku imaan karaan laakiin macno kuma yeelan karaan inay jabhado cusub ee is-abaabulaya oo danta laga leeyahay ay tahay in manaasib iyo xilal lagu xaqiijiyo dhiigooda inay maanta garab istaagaan ama ay la shaqeeyaan waan ognahay dadku inaysan taageersanayn waan ognahay inaysan la jirin laakiin inta yar ee weli aaminsan inay khayr ka shaqaynayaan inta yar ee caadifada diiniga lagu kicinayo ee aan xaqiiqda nimankani iyo waxa ay ka shaqaynayaan si fiican u fahamsanayn ayaan leenahay ka waantooma ogaada xaqiiqda dhabta iyo waxay ka shaqaynayaan ogaada sanawaadkii dhowr iyo 10 sano ah ee la soo dhaafay waxa ay ka shaqaynayeen nimankaasi siday u shaqaynayeen xilli walba iyo duruuftay joogeen dantooda iyo maslaxadooda sida ay hormuudka u ahayd ama ay iyadu hor socotay oo aynan marnaba u qiimeynaynin deegaanka iyo dadka ay matalaan ama ay ka soo jeedeen masaalixdooda iyo danahooda gaarka maantay qofka raba inuu galmudug matalo qofka raba inuu deegaankan magaciisa uu xil ku qabtaahi kama shaqeeyo xabad iyo dhibaato dadkan lagu rido kama shaqeeyo marka dadka walaalaha ah ee weli ku kadsoon ee haysta inay culimo iyo diin ilaalinayaan waxaan leenahay culimo iyo diin la ilaaliyahay ma jirto ee dadkiina dhinac ka raaca dalkiina iyo deegaankiina ilaashada qodobka saddexaad waxa weeyaan dad badan ayaa waxay ka hadlayaan ama siyaasiyiin ah ama dad kale Soomaaliyeed oo aan isleeyahay runtii xaaladda dhabta ah ma ay dareensana ama ma ay oga ee deegaanadan ka jira ayaa wax iska soo saarayaan bayaanaad iyo warar bay soo saarayaan wararkaas iyo laga yaabo mararka qaar inay dhaawac u geysanayso galmudug inay dhaawac u geysanayso deegaanadan gaar ahaan ay nimankani culayska gaarka ku sii hayaan inay dhaawacayso marka taana waxaan leenahay dadka siyaasiyiinta ay hadalladaas aan laga fiirsan soo saaraya ee qoraya mar walba waa inay ka feejignaadaan oo aysan ku kadsoomin xaqiiqda dhabta ah nin qori wata ee siyaaro ku soo gambaday ee dad reer miyiga abaabulay ee hub soo qaatay ee ciidamadii dawladda iyo shacabkii la dagaalamaya oo aan qofna dhaafaynin oo magaalooyin qabsanaya oo orodka iyo dagaalkaas ku jira inaad tiraahdo nabad ha lagala hadlo iyo hala wada fadhiisto iyo hala sheekaysto waxa weeyaan waxaadan fahamsanayn nooca dada aad ka hadlaysaadan fahamsanayn dadka qoriga wata ee ordaya la rooraya xabadaha ayaadan aqoonin nooca ay yihiin maxaa lagala hadlaa ninkani waa jabhad dawlad soo weeraro weeye maamul soo weeraro weeye raba inuu dumiyo hal hadaf uu leeyahay hadafkiisu waa inay maamulka iyo systemka ka jira galmudug inuu meesha ka baxa waaye waa inuu isagu xukumaa waxay rabaa ha ku dhinteen waxay rabaa ha noolaadeen laakiin inuu isagu yimaado weeye waliba inuu si fiican u xukumo ma ahe aakhiru rabaa inuu u diro godka hoostiisa inuu ku hayo rabaa wanaagna kuma soo u xukumo ma yaqaano laakiin wuxuu yaqaanaa inuu laba checkpoint labada dhinac ka dhigto ee uu lacag ka gurto lacagta ka aruurso baabuurta gaadiidka wadada maraysa waxa aan rahanka u nahay ee aan maanta masiirkeena iyo masaalixda dadkeenu ay ugu jiraan maaragtay ay khatarta ugu jiraan waxa weeyaan isbaaro la dhigto mareer gur iyo matabaan inta u dhaxaysa oo checkpointyaal inta laga samaysta lacag laga qaado dadkoo la xirxiro dadkoo xorriyatul qowlka lagala dagaalamo ra'yiga wanaagsan oo aan la dhagaysanin dowladnimadoo lala dagaalamo galmudugoo la baabi'iyo asal waxaa ka ah dagaalka socda iyo dhaqdhaqaaqyada socda intaasaa asal ka ah marna ma shaqaynayso uma joogno mana aqbalayno inay tallaabada noocaasi hirgasho waana laga hortagayaa tallaabo walba oo macquul ah ayaana lagu difaacaya deegaanada galmudug ciidamadeedii baa jooga maamulkeedii baa jooga annagu casaakir iyo askar ma nihin laakiin waxaan naqaanaa dadka ay ka suurtawdo masaalix iyo wanaag inay qaataan iyo kuwa kalaan kala naqaanaa shalay ninkii la karaameeyey ee markii galmudug ugu dambeysay ka baxayeen la karaameeyey diyaaradaha loo qaaday nin walbaaba xaggeed rabtaa inaad aado ma deegaankagaad joogaysaa ama meel kale aad aadaysaa nin walbaa meeshuu sheegtay iyo maslaxadiisa iyo wanaagiisa soo u arkaya lagala shaqeeyey iyagoo musaalimiin oo nabad qaba ka tegey ayaa qori kula soo laabtay dadkii iyo deegaankii sida ay mar kaleeta dhibaato u geliyaan taasna marna ma suurtawdo inaad hadal yaroo jilicsan oo maxaa la yidhahdaa labada dhinac xabadda ha joojiyeen nabadda ha laga shaqeeyo waxyaabaha noocaasi annagu nabaddiid ma nihin
laakiin waxaa la yaqaanaa cidda nabadda lagala shaqayn karayo ciddaan nabadda rabin ee rabta inay magaalooyin iyo deegaan iyo dad la wareegto ayaa la garanayaa. marka waxaan dadkaas ka codsanayaa inay fahmaan message-ka iyo risaalooyinka iyo waraaqaha ay soo saarayaan nooca uu yahay, inaynan ku kadsoomin siyaasad iska soo horjeedo meelo kaleeto iyo hadaf iyo ulajeedooyin iyo qorshayaal kale ee dad kale gantaalo loo wado, inaan deegaan iyo dad nabada lagu dhibaataynin, oon lagu dhaawicin, oon colaad lagu hurin ayaan taasna ka codsanaynaa. dowladda Soomaaliyeed waxaan ayadana u soo jeedinaynaa inay dowlad goboleedka Galmudug iyo maamulka Galmudug shaqada iyo deegaanka ay iyagu mas-uuliyadda ka yihiin oo annaga dhan aan uga wada dambayno in lagu sabood gareeyo sidii ay ammaankeeda ay u hanan lahaayeen, si ay inta ka soo horjeeda oo sida khaldan maamulka dowladnimada u isticmaalaysa. maanta hadduu Sheekh Shaakir ama Macalin Maxamuud Sheekh Xasan oo Galmudug madaxweyne ka ahaan lahaa oo sifo sharciya inta lagu doorto ay imaan lahaayeen, dhammaantood gadaashoodaan taagnaan lahayn. laakiin cidda doonaysa inay xilligan qarnigan iyo waqtigan iyo sanadkan la joogo jabhado ku burburiyaan dowlado iyo nidaam shaqaynaya oo dadka maslaxadooda wax un ka qabanaya, waxaa weeyaan ceebay ku tahay iyagana, dadka Soomaaliyeedna ceebay ku tahay, deegaanadana ceebay ku tahay, mana shaqaynayso, mana la aqbalaayo, mana laga yeelaayo. marka dadkuna yay ku kadsoomin, iyaguna yaynan isku dayin tillaabooyin aan wax badan uga hirgelinin inay runtii inay ka shaqeeyaan.